وأصبحنا مجمعة taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha Oktoobar sanada 2020 kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi iyo xildhibaano kale ayaa wada qorshe ka dhana xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhawaan codka kalsoonida siiyaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya gudoomiye Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi oo ka xariisan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada Muqdisho ayaa hadda raajicinaya in uu saameyn iyo xubno muhiim ah ku yeesho xukuumadda cusub ee la soo wado waxaana qorshahani la wada xildhibaano fara badan oo ku fikir ah sida xogta aan helnay ay sheegayso gudoomiye Muudi ayaa damacsan in xubno muhiim ah uu ka helo xukuumadda cusub kuwaas oo sida wararka ay sheegayaan ay kala qaybsadeen xafiiska madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada la safan Cabdiweli Muudi ayaa la sheegayaa in ay rabaan in xilal sare ay ka qabtaan xukuumadda la soo dhisayo kuwaas oo haddii laga dhigo fureysto dalabkooda caqabad ku keeni karta in la ansixiyo xukuumadda Roble gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo dad badan ku heeba ka shaqaaleysiiyay dawladda qaarkood xilal sare ay ka hayaan ayaa haddana u ordaya inuu xubno wasiiraha ku yeesho xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra'iisul wasaare Roble taliyayaasha madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaya in wasiirada cusub lagu soo koobo dadka taageersan taliska Farmaajo si doorashada soo socota xildhibaano loogu diyaariyo isla markaana ay dib ugu soo doortaan madaxweyne Farmaajo dhanka kale la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhanka amniga Cabdi Saciid Maxamed Cali ayaa warqad ashtaka ka gudbiyay ciidamada Kenya ee kamid ah howlgalka nabad ilaalinta ciidamada Afrika ee AMISOM warqadda oo lagu soo hagaajiyay madaxa howlgalka AMISOM Francesco Madera ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ee gobolka Gada ka geysteen xasuuq shacab iyaga oo taxshiirad ku furay shacab aan waxba galabsan September 2020 ee sanadkani warqadda ayaa lagu sheegay warbixino aan helnay ayaa sheegaya in dhacdo ka dhacday agagaarka Ceelwaaq ee gobolka Gado taasoo la sheegay in askar ka tirsan ciidamada AMISOM ay rasaas ku fureen dad rayid ah 20 September ee sanadkan 2020 waxa 20 September uu dagaal ku dhex maray xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya kadib markii ay diyaaradaha Kenya ay duqeyn u geysteen kooxda Al-Shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si aad ugu walaacsan tahay sawirada muuqaalka iyo rabshadaha wata ee ka socda gobolka Gado iyo tacadiyada ay geysanayaan ciidamada Kenya waxayna codsanaysaa in AMISOM ay furto baaritaano degdeg ah oo hufan oo ku saabsan dhacdadaasi dhanka kale waxaan codsanaynaa in AMISOM ay la wadaagto xaqiiqda bilowga ah ee dhacdada dawladda federaalka Soomaaliya waxaan sidoo kale codsanaynaa in baaritaanka si dhaqso leh loo soo gabagabeeyo si dadka ku lugtay loola xisaabtamo dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magacaabay guddi soo diyaariya habkii loo qaban lahaa doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland qoraalka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu eedeeyay in heshiiskii doorashada ee madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada aan laga talagelinin madaxda iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi balse ay taageereen heshiiskaasi Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magacaabay guddi uu sheegay in ay soo diyaarin doonaan habka iyo hanaanka loo qabanayo doorashada xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda gobolada waqooyi taasoo ka dhici doonta magaalada Muqdisho waxayna magacyada guddigani kala yihiin xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaali Beyle xildhibaan Maxamed Cumar Carte xildhibaan Saciid Maxamuud Xayd xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey xildhibaan Maxamed Cali Xagaa Jamaal Xasan Ismaaciil iyo senator Cabdirasaaq Axmed Cali xubnahan ayaa u badan wasiiro ka tirsan xukuumadda xilka sii haysa waxayna mar kale u taagan yihiin jagooyinka xildhibaanimo iyo senataro lamana oga inay arrintaani heshiis ku yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyne Farmaajo dhanka kale siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beesha Xawaadle oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka digay burbur soo wajihi kara maamulka Hirshabelle siyaasiyiintan oo ay ka dhex muuqdeen xildhibaano senataro iyo madaxdii hore ee Hirshabelle ayaa soo saaray 5 qodob oo ku saabsan dhismaha maamulka Hirshabelle waxaana qoraalkooda ka mid ahaa in la ilaaliyo heshiiskiisa afgaradka ahaa ee lagu dhisay maamulka Hirshabelle kaasoo ku saleysnaa awood qaybsiga qeexaya in gogashii caasimadda maamul goboleedka ay tahay magaalada Jowhar heshiiskaas oo qeexaya in beesha Xawaadle ay leedahay madaxweynaha maamulka Hirshabelle beesha Afgaanle ay leedahay madaxweyne ku-xigeenka siyaasiyiintan ayaa waxay ka digeen in haddii aan la dhowrin heshiiskii lagu dhisay Hirshabelle uu keeni karo burbur ku yimaada maamulka Hirshabelle waxayna ku doodeen in hawsha doorashada maamulka Hirshabelle ay koox gaar ah isku koobtay arrintan ayaa soo baxaysa iyadoo xilka madaxweynaha Hirshabelle isku soo sharaxay madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Guudlaawe iyadoo ay taageersan tahay madaxtooyada filla Soomaaliya dhanka kale warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaya in gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya muddo bil ku dhawaada uu ku xiran yahay taliyihii ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin taliyaha ciidamada Danab ayaana ka hor inta aan xabsiga la dhigin lagu sameeyay shaqo ka joojin waxaana xilligaas wixii ka dambeeyay lagu xabisay xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu ku xiran yahay muddo bil ku dhow sida aan xogta ku helnay taliyaha ayaa sababta shaqo ka joojinta loogu sameeyay loo nixiro loo saweeyay in uu qaraabo dhow leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sidoo kale mar soo noqday taliyaha ciidamada ilaalada qaaska ah ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu wax ka og yahay shaqo ka joojinta iyo xariga loo geystay taliyihii ciidamada Danab Gaashaanle Ismaaciil oo ahaa sarkaal aad u firfircoona oo wax badan ka bedelay ciidamada Danab intii uu taliyaha u ahaa waxaa sidoo kale socdo qorshe taliyaha Danab loogu dhigay nin ka mid ah borotokoolka madaxweyne Farmaajo
oo dhawaan laga dhigay taliyaha qaybta sirdoonka militariga Soomaaliya kadib markii xilkaasi sidoo kale looga qaaday sarkaal ku heeb ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Dadkii aad ugu dhawaa una badan kuwa ku heebta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa laga soo waday eriye inta badan xafiisyada ra'iisul wasaaraha. waxaa sidoo kale xilka qaadis hadda wajahaya xubno kale oo aad ugu dhawaa ra'iisul wasaare Khayre. Amarka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhawaan xilalka looga qaaday saraakiil iyo taliyaal ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya kuwaas oo looga shakiyay in aysan daacad u ahayn fila Soomaaliya qabiil ahaana ka soo jeeda beesha Hawiye. dowladda Mareykanka ayaa hore si adag ugu carootay shaqo ka joojintii lagu sameeyay taliyaha ciidamada danab ee uu Mareykanka taageero waxaana war ka soo baxay Mareykanka lagu sheegay in taliska militariga ay wadaan nin jecleys iyo nidaam musuqmaasuqa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafka baahsan ee doorashooyinka ee lagu gaaray fila Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay arrimo uu sheegay in ay dib u dhac u keenayaan oo ku jira heshiiskaasi kaas oo ku qotomay xilliga ay qabsoomayso doorashada oo aan si rasmi ah loo cadeynin. sidoo kale waxa uu sheegay in uusan jirin hab cad oo lagu sheegay heshiiskaasi oo loo soo xulanayo baarlamaanka iyo qaabkay u kala gudbayaan xildhibaanada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qabay in madmadow badan uu ku jira heshiiska lagu gaaray fila Soomaaliya oo u baahnaa in si cad loogu bayaaniyo qodobada ay sida wadajirka u soo saareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. waxyaabo badan ayaa tafaasiil ka dhiman heshiiskaasi oo waxaa weli u dhiman waxyaabo badan oo u baahan in la caddeeyo. waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda la dhammeeyo ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wuxuuna soo jeediyay in shirar kale ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si waxyaabaha yaryar ee mugdiga ku jira loo caddeeyo. ugu dambeyntii waxa uu ka dhawaajiyay in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo qaabkii uu dhaqan geli lahaa heshiiskaasi iyadoo dib u hagaajin lagu sameynayo xilli uu meel mariyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhanka kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa laga dhowrayaa in uu si dhaqsi ah ku soo magacaabo golihiisa wasiirada kuwaas oo halkeeda ka sii wada hawsha qabyada ah ee ka tagtay xukuumadii hore. inkastoo si dhab ah aan loo hubin xubnaha wasiirada ee ka mid noqonaya xukuumadda cusub haddana warar soo baxaya oo aan helin ayaa sheegaya in siyaasiga Salaad Cali Jeele uu ka soo dhex muuqan doono wasiirada cusub balse lama oga xilka uu qaban doono. Salaad Cali Jeele oo ah siyaasi aad u taageera fila Soomaaliya ayaa marar badan weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne Farmaajo gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. sida wararka ay sheegayaan madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya in xukuumadda cusub uu ku soo daro siyaasiyiin badan oo in muddo ah garab kula ah dagaalka mucaaradka kuwaas oo markii hore fursad loogu soo daro xukuumadda lalaa. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in xukuumadda cusub ay raajicinayaan xubno mucaarada inay ka mid noqdaan kuwaas oo buux dhaafiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha cusub Mudane Maxamed Xuseen Roble. wasiiradii xukuumaddii Khayre aadka ugu dhawaa fila Soomaaliya ayaa soo laabanaya kuwaas oo laga xusi karo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfa iyo wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. waxay warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah ugu helaysaa shabakadda Sirta Media.